xaflad lagu taageerayo musharaxnimada xildhibaannimo Baale Ibrahim Cabdi ayaa waxaa lagu qabtay gudaha magaalada Nairobi. Warka Nairobi waxaa ka soo diray Maxamed Cadceed. Baale Ibrahim Cabdi oo kamid ah dadka shaqooyinka muuqda ka soo qabtay gobolka Gado ayaa waxa uu sheegay inuu u taagan yahay mid kamid ah kuraasta matalaada gobolka Gado gaar ahaan degmada Balad Xaawo taasoo ay si diiran u soo dhaweeyeen qaar kamid ah dadka matalaada kursigaasi leh. xaflad taageero loogu muujinayay musharax Baale Ibrahim ayaa waxa ay ahayd mid heerkeedu uu aad u sareeyo waxaana ka soo qayb galay qaar kamid ah siyaasiyiinta gobolka Gado odayaasha dhaqanka ee beesha aqoon-yahano dhalinyaro dhamaantood waxa ay si diiran u muujiyeen dareenkooda ku aadan kalsoonisiinta Baale Ibrahim oo ay sheegeen inuu matali karo kursigaasi. waxaan u sheegayaa Baale wuxuu ka dhashay qabiilka beeraha kamid ah oo qabiilka ugu qiimo weyn oo umug weyn beeraha sare taariikhna kula gobolka Gado qiimahooda iyo qaayahooda waxtarkooda leeyahay waxa ay Gado ka qabtayna leeyahay aan ka shaqaynin mucaamarad iyo dabandaabiyo gobolka sare aan walgood ka shaqaynin asagana uu yahay nin gobolka Gado taariikh ku leh oo la yaqaano dawladda Soomaaliya oo Maxamed Siyaad Barre naxariis janna Allah siiye Soomaaliya u soo qabtay una soo halgamay Cornel Baale halkaan baaq umadeed oo baaq Soomaaliyeed ah inaan halkaan ka diro baaqaas wuxuu yahay maanta Soomaaliya waxay u baahan tahay isbedel heer walba isbedelkaas marka ay u baahan tahay maanta nin walba asaga la rabaa ninkiisi loo diray hadii uu ku qanacsanaa waa in ay ummadda Soomaaliyeed kuna qanacsan tahay hadii uu san ku qanacsanayna qarannimada Soomaaliya nin raaci kara waxa weeyaan ummaddaas ayada loo diray annagu marka reer Gado baaqan gaarsiinaya waxay tahay isbedel xagga xildhibaanadan u baahanay leena shacabka waxaan nahay gobolka u dhashay dalkii deegaankaas iyo dadka macnaha halka ma garanaysaa matalaada ku lahaa maadaama noola diray xildhibaankii ugu horeeyay annaga reer Gado kursigii Balad Xaawo laga dooranayay waa soo raadinay waana soo helnay kulay waxaan filayaa gabar garmaamo ah qurux badan oo dadka dhan wada jecel yahay ayaa dhamaanteen inta halkaan joogtay inta maqanba yaana weydiistay gabadhii kulay anigu xaqayga inaad wada bixiseen hortay waan filayaa anna waa idin ku raacay war waxa maanta noo yimid Baale Cabdi war ma doorateen korneelka ma doorateen adeer waa ku dooranay ergadaasna waxaan leenahay dadka aad matashaan urun sheega doorta qofka wax idin qaban kara doorta musharax xildhibaan Cornel Baale ayaa ugu dambeyn goobta ka hadlay waxana uu sheegay inuu wax weyn ku soo kordhin doono deegaanka hadii loo doorto kursigaasi nasiib wanaag aniga codsi waxaan ku imid beeshaan ka dhashay iyo siyaasiyiinta reer Gado ee ka soo jeeda gobolkaas ku abtirsada haday heer qaran yihiin iyo haday heer gobol yihiinba codsigooda baan xaqiiqa ku soo ajeebay aan ku soo aaday inaan dibta carada ka jirta wax kala qaybsada intaas maxaan ku raaddaa sabab u ahayd walaalahayow waxaan aniga marka maanta hadda u hortaaganahay hortiina waa xil baahi weyn oo xaqiiqa ani gaar iyo haysana ma jirto inta laga soo taariikhay oo ragii iga horeeyay ay ka soo taariikhayeen aniga ugu meehiyo curud banahay nin taariikhda beesha sida dhaxdeeda laga yaqaan oo aan ku cusbayna xaqiiqa waa ah ragga dhalinyarada maanta joogana waxaan leeyahay nin walba oo dalkaaga abaal gasho oo aqoon gasho bari waad ku naxjixaysaa xaqiiqa Maxamed Saad Cadceed Telefishinka Universal magaalada Nairobi.